haddaad horay mar walba trade qaadanaysay aad calculator isku dawada jirin waxaan filayaa video wixii ka dambeeyo in calculator aad isticmaali doontid trade markii la galayo dadka naga traderska badanaa sida nagula soo baray ama waa koran forex bilaaweynay waxaana la baray trade inta raadso low size ka micnaha isleeda kaaga qaado take profit ka meel dhigo isagoo loo sameeyo dhigo laakiinse weli xisaab laguma tusin waxaan filayaa videogan haddii ku soo gaaro in aad xisaab gali doontid okay xisaabta maxay tahay sababta waxaan xisaabinaa maanta money management waa topiga ugu fiican oo haddaad baratid aad meel ka gaaraysid ana kuma dhahay technical analysis meel gaaraysid kuma dhahay laakiinse money management waxa weeye topiga ugu fiican wey asaga iyo waxa aad garab socon mar walba trading psychology waayo real money you are real money oo kusoo ridaday yaa meesha ku jira marka qofka inuu emotional qaado wax meesha ku jira laakiinse qofka system uu trust gareeyay baa system ku sameeyay garanayo wuxuu soo saaro garanayo wuxuu khasaariyo intaas duu systemkaas haysto meel u baanta kalsoonidiisa waxa weeye guri kurkiisa u saaranta sigalan kugu sheegay ma garanayo okay maxaynu ka wadnaa marka bugi qalan soo qaado bariya if not videogan favorite ku darso hadda marka guriga tagtid bugi qalan ku qor okay inaan kasoo qaadno account-kaada maxaa ku jiro waxaan kasoo qaadno account-kaada $500 ku jirto isla xisaabin $500 account-kaada ku jirto rabtaa inaad trade ku gashid account-kaada mar walba $500 ma ahanayo $500 mar u tagaa $500 u tagaa 6,000 buu tagi 4,800 u tagi 4,900 u tagi account-kaada meel ma joogaa mar walba minaha xisaabtan waxay iskugu bisho wadaa sanadka markuu dhamaado account-kaada maxaad haysataa oo kaleete soo kordhisay account-ka minaha tradia ka hor imaanayaan loo soo qaadanaysaa tradia meesha rabta kula aadayaan waxaa qaadanaysaa ay kaleete wins marka mar walbaba meel baa taagad marka aan kasoo qaadno account-ka 5,000 kugu jirto okay meesha ugu dhawaan ka bilaabno waxa weeye maadaama 5,000 account-kaada kugu jirto meeqa qaartan rasiga gelisid that's 2% 0 point waxaa ku dhufanaysaa 5,000 lagu dhuftay 0.02 waa 2% maxaa soo baxay $100 $100 riski uga gasho isla fanakaas $100 riski uga gasho okay $100 riski uga gasho halkaasaan dhiganaynaa okay lacagtan gelinaa waa euro USD lacagta cid kasta ka tirgeliso qof walba faras cusubna oo ka tirgeliyo oo lacagta smoothka ugu fiican ugu adduunka dhan oo ku jira inkastoo manipulationkiisa money bank manipulationkiisa uu 90% ka yahay halkaas oo lacagta iskaligeed okay $100 yaa waxaad u qaybinaysaa stop loss-kaada halkan la fahan $100 maxaa u qaybinaysaa stop loss-kaada waa markii aad haysatid hal trade oo 2% gelaysid haddii aad rabto 2% aad qaadanaynin lacagtan labaad u qaybinaysa waxaa ka dhigaysaa divide by 2 aad leedahay $50 micnaheedu yahay 1% risk fahmaysaa 1% risk okay inaan kasoo qaadno 1% kaas waxaad u gashaa $50 inaad risk gelisid oo trade ku hal trade qaadatid okay trade marka stop loss-kiisa aw stop loss-ka trade-kan waxaa weeye ATR ka sheegaysa mar walbo in lacagta movement-geeda euro USD 80 ama 120 markay volatility jirto laakiinse bariyahan ka soo qaad 80 kale let's say aan ka soo qaadno 80 okay 80 aan ka soo qaadno 80 marka waxa weeye waa D time frame 4 hour imo waa 40 4 aan gelinayaa mar walba waxaan tagad saarayna in higher time frames aan galno simcinaha buuqa iyo qayrida iyo manipulationka iyo candlestick ordaayo aan oga nasan waqtigan dib aan u helno ma anagna forex maanta nab screen dul fadhino laptopkan hor yaallay maaha waa in macnaha aan adduun kale aan ka ganacsan karno shaqo kala qabsan karno live kala leenahay wax kale ugu xiriiraan ila faanta filaya okay 40 ee dhaqaaqaysay waxaan ku dhufanaynaa 1.5 oo ah 1.5 ATR ka yaan dhiganaynaa stop loss ka simcinaha aan trade-ka u siino briefing ku macnaha meel ku neefsado okay 40 ee dhaqaaqaysay waxaan ku dhufanaynaa times 1.5 maxaa soo baxay waa 60 60 kaas waxaan dhiganaynaa stop loss video waa very controversial laakiinse waxaan filayaa in haddaad fahantid oo systemkaadana shaqaynayo meel uga bixi lahayn systemkaada uu leeyahay meesha ka gelisna systemkaada uu leeyahay xisaabtan ku xisaabinayo kuma afid garanayso laakiin haddaad qof cusub tahay oo ku dhahay stop loss-ka 60 dhigo maskaxda ku ilaanayso because you don't understand the long game big boys games yaa meeshan lagu ciyaara dad waxaan fahmaynin forex kuma anfacayso shaqo la raaso laakiin skillskan dadka macnaha long term-ka iyo anfacaya alright sigi waxaan dhahaa marka 40 waxaan ku dhufanay 1.5 xisaab caadan ku jirnaa 60 gaas stop loss ka dhiganaysa TB waxa ka dhiganaysa TB waxaan dhiganaynaa meesha ATR ka tiri waa 40 waan joognaa ATR waxa ku qoran 40 gaas ya TB oo macnaha dhaqaaqa ugu horeeyo waxaan rabnaa in TB la garaaco aksana faanta dareemaya haddii TB markii 40 lagu garaaco stop loss ka 60 ka soo qaadid yaa waxa keenaysaa break even hadda wixii ka dambeeya marka meel aad ku qasaartay ma joogto horena u sheegnay trade walba laba gacan ahaan baa u gelaysaa hal gacanna TB-da ku xiranaysaa ugu horeyso halka gacan waxaad kula soconaysaa trendiga taas la fahansan ma alright waxaan dhahnay
stop loss waa 60 take profit waa 40 konton doolarna waa gelinaa meesha marka kon doolar riska u gasho okay kontonka doolar yaa waxaa u qaybinaysaa 60 maxaa soo baxayo 0.8 hal doolar ayaad markaysaa waa 0.8 marka 0.8 kana waxaa leedahay divide by 2 laba gacan ahaan u gelaysaa waa 0.41 okay 0.4 daas laba trader dhag siinaysaa oo min 0.4 min 0.4 waa tamaanaya taas igu qoran tahay 0.4 0.4 arkaysa moo 0.4 yaan laba trader galayaa haddii marka ugu horreysa uu ku dhaco TB ku dhaco waxaa samaynaysaa stop losski soo qaadaysaa break even keenaysaa traderka waa la sii soconaysaa sidaas ayaa riskiga loo xisaabiyaa sidaan samee kadib waxaad raasataa wax suuqa kaa bixiya waan ogaa suuqa kusoo geli waa haysataa wax kaa bixi maysid suuq wax kaa bixi raaso hore baa nooga hadlay exit indicator inuu muhiim yahay suuq meesha uga bixisid waa meel xisaabsanaya halis mar walba isla fanaka soo ma okay video hore aan nooga hadalnay disciplinkan isagana waa muhiim waa daawan kartaa السلام عليكم